salaamullaahi calaykum asxaabteyda qiimaha badan ku soo dhawaada muuqaal cusub maanta waxaan isla fiirin doonaa shaqooyinka mustaqbalka dhow sida aan wada aragno shaqooyin fara badan ayaa sii dabargo'aya sanadba sanadka ka dambeeya shaqooyin ayaa laga maarmayaa midaan waxaa ugu wacan horumarka ballaaran ee uu adduunka u tallaabsaday mashiinada faraha badan lasoo saarayana dad badan ayay hawshay qaban lahaayeen ka fariisiyeen marka waxaa jira shaqooyin aanan dabargo'ayn iyo kuwa hadda soo kordhay ee loo baahan yahay intaas ayaan ku eegi doonaa muuqaalkeena kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaalkeena waxaa habboon in aad isweydiiso xirfadda aad baranaysid suuqa qiimo intee leeg ayay ka leedahay middaa waxay ku noqonaysaa hadaf fiican oo runtii mustaqbalkaagana ifin doona balse haddii aad baratid xirfad laga guuray waxaa loo arkaa in waqtiga keliya aad iska lumisay inkastoo waxa aad jeceshahay inaad baratid ay ku fiican tahay haddana waxaad jeceshahay hadday yihiin wax laga soo guuray ka waran marka middaa in aad looga fiirsado ayay u baahan tahay halkan waxaan kugu sheegayaa xirfadaha sanadada soo socda loogu baahi badan yahay iyo qiimaha ay suuqa ka joogaan computer information system xirfadan oo aad ku baranaysid warbixinada systemka kombiyuutarada waa xirfad runtii haddii aad si wanaagsan aad u baratid aadan shaqo weyneynin waxaana ka baran kartaa jaamacadaha ama collegeska waxaana lagu bartaa muddo gaaraysa 3 ilaa 4 sano meelaha fursadaha shaqo ee suuqa ka leedahay dadka xirfadan barta shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyada ayay ka shaqeey karaan fursadeeda suuqana way sii kordhaysaa isla xilligan aan hadlayno 18% ayay maraysaa raadka xirfadan waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan $60,000 qofka bachelor degree haysta master degree qofka haysta wuu ka sii badan yahay xirfadda kale waxaa lagu magacaabaa chemical engineering fieldiga engineeringka waa fieldi aad u weyn chemical engineeringna waa qayb ka mid ah engineeringka asigana waa xirfadaha ugu mustaqbalka fiican haddii biology chemistry iyo physics aad ku fiican tahay waxbaad ka keeni kartaa runtii aynu fiirino fursadaha shaqo ee suuqa ay ka joogto chemical engineering fursadihiisa way sii ziyaadayaan oo qofka wuxuu ka shaqeyn karaa shirkadaha waaweyn ee dawooyinka soo saaray iyo shaybaarada mushaaraadka xirfadan waxaa lagu qiyaasaa lacago gaaraya ilaa $75,000 sanadadii ugu dambeeyay kobaceeda shaqo way sii kordhaysay xirfadani xirfadda kale waxaa lagu magacaabaa medical assistance kulliyadani waa kulliyad muhiim ah mideeda kale caafimaad qayb kastoo aad ka baratid inta bini'aadamku uu nool yahay weligii lagama maarmo sidaa darteeda kulliyadan medical assistance waa muhiim cusbitaalada iyo qaybaha kale ee caafimaadka xirfadani aad ayaa loogu baahan yahay waana xirfad waqti sidaa aan kaa qaadanayn oo aad ku baran kartid muddo 2 sano ah haddii aan fiirino fursadaheeda shaqo ee suuqa ay ka joogto kaaliyaasha caafimaadka ayaa inta badan mas-uul ka ah fulinta amarada dhakhtarada waxay caadi ahaan ka shaqeeyaan isbitaalada waxayna qabtaan howlo u baahan xirfad caafimaad iyo maamul waxaana loogu qiyaasay mushaaraadkeeda xirfadani ugu yaraan $50,000 xirfadda kale medical technology heerarka shaqaaleynta tiknoolajiyada caafimaadka ayaa sii kordhaya tani waa xirfad kale oo dhanka daryeelka caafimaadka ah oo u leh mustaqbal rajo fiican ardayda hadda jirta tiknoolajiyada caafimaadka waxaad baran kartaa heerka koowaad haddii aynu eegno fursadaha shaqo ee suuqa ka joogto ayadana xirfadii hadda oo kale ayay u yara dhowdahay isbitaalada ayaa ka shaqeynaysa mushaaraadkeedana waxaa lagu qiyaasaa ilaa $50,000 xirfadda kale electrical engineering fieldiga engineering ayaa qayb labaad ka soo galnay dadka inta badan electrical engineering wuu adag yahay ayay dhahaan waxay sidaa u leeyihiin keliya heerkiisa ayay ku qiimeeyeen balse caalamku wax adag ma lahan ee dadka ayaa isku adkeynaya haddii aad baratid dhul ma dhicisid xirfadani aynu fiirino fursadaha shaqo ee suuqa ka joogto fursadaha shaqo ee xirfadani aad ay u sii badanaysaa sanadadan dambe qofka wuxuu ka shaqeynayaa shirkadaha waaweyn ee korontada iyo qalabkeeda soo saarta kulliyaddan mushaareedkeeda waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan $60,000 kulliyadda kale construction management kulliyadan ayadana waa maareynta dhismaha waa kulliyad muhiim ah weliba isla dalka boos aad u weyn kaaga banaan tahay dalkeena dhismaha iyo maareyntiisa aad ayuu ugu baahan yahay runtii marka ayadana waa xirfad kale oo maanta muhiim ah fursadaheeda shaqo haddii aan fiirinana fursadaha shaqo ee xirfadani aad ay u sii badanaysaa 17% ayay kor u sii kacday sanadadii dambe mushaaraadkeedana waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan $50,000
xirfadda kale nursing kalkaalisinimada waa hawl adag laakiin dadka ay moodaan wax iska easy ah sidaan hore usoo tilmaanay xirfadaha caafimaadka la xiriira marnaba howlgab ma noqdaan oo intay nolol jirto way sii jirayaan nursingka jaamacad ayaa looga soo baxaa balse dadkeena waxaaba moodaa ayagoo jaamacad u gelin inay ka badiyaan dadka jaamacadaha u gala runtii xirfadani eedana xirfadaha suuqa leh ayay ku jirtaa fursadaheeda shaqo haddaan eegnana nursingka caalamka siduu qaali uga yahay inuusan dalkeenu ku ahayn ayaad dareemaysaa markii loo eego dhanka mushaaraadka caalamka qofka nursingka ahi wuxuu ku xisaabtamaa dhowr kun oo dollar balse dalka arrintaas kama jirto waa waxa dad badan ay u liidayaan xirfadani kobaceeda xagga fursadaha shaqooyinka 26% ayay kor u kacday sanadadii la soo dhaafay xirfadda kale physical therapy helitaanka shahaadada physical therapy way adag tahay ayay dhahaan dadka markay meelaha hoose isu ciriirinayaan adiga waa inaad ku raaxaysataa goobaha sarsare ee cidlada ah waxaan sidaa u leeyahay dadka ma rabaan maadooyinka iyo qaybaha adag inay bartaan marka adiga waa inaad barataa qaybahaas oo adag oo dadka ay ka cararayaan haddii aad hal mar baratidna waad raaxaysanaysaa laakiin haddii meel oo ciriiriya aad adiguna geshid ciriirigaas unbaad ku noolaanaysaa raaxad dareemi maysid laakiin meel cidlaha haddaad joogtid waa iska raaxaysanaysaa oo qof ku ciriirinaya arki maysid marka xirfadani dad aad u badan ma bartaan haddii aad baratidna runtii xirfad aad u muhiim weeye xirfadani muddo 4 sano ayaa lagu baran karaa waxa dadka ka cararaya ayaa ugu wanaagsan waxa la barto hadhow ayaad ku raaxaysanaysaa si aad u baratidna waxaad u baahan tahay maadooyinka biology anatomy iyo qaybaha kale ee caafimaadka fursadaheeda shaqo haddaan fiirinana fursadaheeda shaqo aad ay u sareeyaan xirfadani hospitaalada iyo goobaha lagu baxnaaneeyo dadka ayaa inta badan lagaga shaqeeyaa xirfadani mushaaraadkeedana waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan $60,000 xirfadda kale pharmacology kuwa hadda dakhligoodu sareeyo waxaa ka mid ah dadka haysta shahaadada pharmacology tani waxay u baahan tahay shahaadada koowaad ee jaamacadda ugu yaraan fursadaha shaqo haddaan fiirinana fursadaha shaqo ee pharmacology waa ay badan yihiin ayadoo la qiimeynayo mushaaraadkiisa qofka hadba shahaadada uu wato heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad way kala duwan yihiin waxaana lagu qiyaasay mushaaraadka qofka haysta shahaadada heerka koowaad ugu yaraan $105,000 baahiyaha loo qabo xirfadan ayaa sii ziyaadaysa xilliyadii ugu dambeeyay waxayna kor u kacday 25% inta ay ahaayeen xirfadaha suuqa leh sanadada soo socda waxayna isu jiraan qaar wadankii laga helayo iyo kuwa kale intaan hadday ku jiraan mid aad adiga rabtid oo aad jeceshahay ha ka shakin ee si fiican meel u saar mustaqbal ayay leeyihiin haddii aad dhamaysid beri ka maalin meel ayay ka soo saarayaan intaan ayuu ku eg yahay muuqaalkeena maanta waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iiday intaan muuqaal kale ku kulmi doono sidaa iyo amaano Allah